xisbiga kulmiye oo maanta u ahayd maalintii saddexaad ee ololaha doorashooyinka jagada madaxtinimo ee Soomaaliland ayaa maanta fagaarayaasha kala duwan ee magaalada Laascaanood ku qabtay soo baxyo boqolaal dadweyne ayaa maanta isku soo baxay magaalada Laascaanood kuwaas oo ku dhawaaqaya hal ku dhigyo ka mid ahayeen kulmiye guul waxaana kala qayb galay wasiirka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliland gudoomiyaha xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye wasiir dowlaha beeraha wasiir dowlaha cadaaladda xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Sool waxaana meel fagaara ay kala hadleen dadweynaha isku soo baxay markale xukunkiyo xilkaaga udhi kulmiye uxilo markale xukunkiyo xilkaaga udhi markale waxaan idin sheegayaa anigoo ka gudoomiye xisbigii talada hayn jiray ee udub anaa idin sheegay inuu dhacayo xisbiga kulmiye hadduu dhacayo anaad garan lahaydeen wuu guulaysanayaa xisbiga kulmiye wuu guulaysanayaa kulmiye soomaad garan waa soo dhawaynaynaa si wacan baan u soo dhawaynaynaa haddii ilaahay maayo dadku waa kulmiyaysan yahay waxaan halkan fariimo uga dirayaa rag maalmo dhaweyta halkan ka hadlay oo xisbiga eedeeyay horta sideedaba raggii xisbiga kulmiye ku jiri jiray xilalka ka hayn jiray ee maanta inta xisbiya kala galeen doonaya inay gobolka dawaqiyaan oo khalkhaliyaan waxaanu leenahay dadku xoolo meesha idinku xiraysan maaha dhammaanteen waxaynu aad ugu faraxsannahay inaynu ka soo qayb galno xafladdan qiimaha badan ee aynu ku maamuusayno inaynu isku tusno awooddeenna innagoo taageerayna xisbiga kulmiye ha guulaysto xisbiga kulmiye ha guulaysto xisbiga kulmiye ha guulaysto kiba boqol maantana anagu xisbiga golaha dhexe ee wadani baanu hayn maantana waxaan soo digirabinay xisbiga kulmiye ee talada maanta gacanta ku haya wuxuu qabtayna waa la ogyahay xaaladuna boqolkiiba boqol guul baynu taagannahay shacabkana maanta kulmiye waxaan rabaa inay taageerada soo baxaan waxaana nii sheegayaa xaqdarrada taalla xisbiga wadani halkan waxaan ka sheegayaa xisbiga wadani qoladii shalay ka soo digarrogatay annagoo ah xubno golaha dhexe ah waxaan uga nimi qabyaalad waxaan uga nimi musuqmaasuq ninkii baasha dilay baa la leeyahay talaha laga qaato aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa marka hore dadweynaha reer Laascaanood ee kulmiye taageerayaasha ah dhammaantood ee u badan ee u taagan maalintii saddexaad inay muujiyaan shucuurtooda iyo taageeradooda marka ugu horraysa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa fikirkiinni baad muujinaysaan dareenkiinni baad cabbirteen mabdi'iinni baad caddaynaysaan aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada Laascaanood السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاد waxaan ugu faraxsanahay sida maalin walba tiradeennu u soo kordhayso sida aad sidii daadka u soo rogmanaysaan aad baan ugu faraxsanahay maanta waa maalintii saddexaad ee dabaaldega 4 maalmood baa inoo haray 4 maalmoodna dadka waxa inaga harsanayaan la khalday ama aan soo haleelin ayaynu doonaynaa inay ku soo biiraan xisbigan oo yimaadaan oo ka qayb qaataan maanta aad iyo aad baa loo soo bannaan baxay waa maalintii saddexaad weliba maxay ahayd xuduudeennii baynu muujinnay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaa muujiseen cudud waxaa muujiseen taageero sidaasaa laydinka filayaa maalinta maxay ahayto kaar qaadashadana haddii aan laydmo waxa weeyaan kulmiye wadda cad oo aragtaan waxna qabtay haddeerna barnaamijkiisa iyo maxay ahayto aad aragteen iyo barnaamijka u degsan haddii aan laydmo waxa weeyaan dadka iyo dalku nabad buu u baahan yahay horumar buu u baahan yahay isku xidhnaan buu u baahan yahay aragti cad oo la qaadan karo u baahan yahay وفرحان محمد عيدي تيفيق عالمي أريل مجال الله سبحانه